wax la qarinayo maaha. anaa kamida saxiixayaasha mooshinka, anaa saxiixa. waxaan u saxiixaynana waxa waaye in aan dalkan ka badbaadino nimankan awoodda maroorsanayo oo jidkii dowladnimada naga leexinayo. soo lama oran kara waad dulminaysaan ra-iisul wasaare xamse mar haddii isaga aad ku haysataan doorasho qof cod dalkii ma gaarsiin karo, hanaankii kale dowladnimo wax badan ka qaldan oo midka kale imaan doona aad leedihiin uma suurtagelayso waqtiga. gudoomiye aadan madoobana waa ku qasban yahay inuu baarlamaanka furo. hadduu furi waayo baarlamaana magaalada dhexdeeda kaga furaynaa, meeshaas asagana xilka uga qaadaynaa, mooshinkana aan prime ministerka ku tuuraynaa. xamse cabdi barre waxaan rabnaa inaan u sheegno walaalow wixii lagu egmaday waa ka gaabisay, waa feelgarooday. intaan mooshinka florka imaanin oon la isqa qabsanin, adiga wax ku wanaagsan waaye inaad intaad timaado aad resign garayso oo xilka ka tagto dalkan. shirar ayaad qabateen oo aad maanta soo gabagabayseen, waxaa ka horreeyay kuwo kale oo dalka dibadiisa magaalada Nairobi ee Kenya aad ku qabateen. qaarkood waxay sheegeen inaad mooshin ka wadaan xukuumadda. arrintaasi aad bay u xoogeysatay, baarlamaankii waqtigiisa waa la dhaafay ilaa iminkana wuu furmi laayahay. maxay tahay caqabadaha jira oo aysan bulshada ka warqabin? midda mooshinka sax waaye, mooshinka waa jiraa, mooshin waa jiraa, miiskuu saaran yahay. maalinka baarlamaanka la furana waxa waaye florku saaran yahay. wax la qarinayo maaha. anaa kamida saxiixayaasha mooshinka, anaa saxiixa. waxaan u saxiixaynana waxa waaye in aan dalkan ka badbaadino nimankan awoodda maroorsanayo oo jidkii dowladnimada naga leexinayo. waxaa kaloo rabnaa prime minister aan waxba goynin oo dalkii ama deegaankii uu ka soo jeeday aan waxba ka goynin, oo maanta shaqadiisa dhan ay noqotay jaziiran waxaan ka furayaa xaflad iyo dikaalan xaflad ka furaa moogay wax kale oo shaqaa aan dalka u haynin. waxaan isla qaadanay inaan lagu fiirsan karin in dalka laga badbaadiyo. madaxweynaha hadda talada hayana inuusan dalkan ka naxaynin, wax rajaa ka lahayn, dhibaatada iyo qaylada yeeraysa iyo dan ka lahayn. waxaa ku garanaysaa prime ministerka uu meesha ku hayo. haddii aad ra-iisul wasaaraha kaba soo qaaday iminka mooshinka aad sheegtay aad keentaan oo aad ra-iisul wasaarihii tuurtaan oo meesha aad ka bixisaan, caadiyan waxaa dhici jirtay in sanadka ugu dambeeyo kale ama sanadii xoogaa markay dhiman tahay haddii buuq yimaado in extension ama waqti loo baahdo. marka kalena waxaad sheegaysaa in muddo kororsi aynan ogoleyn oo doorasho in la qabtana aad waqtigeeda doorasho heshiis lagu yahayna la aado. arrimahaasi soo caqabad kale ma noqon karaan? ma noqonayso. prime ministerka uu madaxweynaha hadda keensan doono wuxuu haystaa sanad buuxa. waxaan u egmanayna waxa waaye inuu doorashadaas iyo qaabkii lagu aadi lahaa uu ka shaqeeyo. ma aha one man one vote. one man one vote waxay u baahan tahay wax badan oo ka horeeya jira. waxaa ka horeeya amniga, waxaa ka horeeya registrationka in dadka la tiro koobo, waxaa ka horeeya in guddiyada doorashada qabanayo oo hadda aan la isku raacsanin ay yihiin kuwa la isku raaco oo xisbiyada iyo ururada tartamaya ay isku raacaan. intii oo dhan lama hayo. waxaa la hayaa guddi uu madaxweynaha magacowday, xeer iyo sharci oo asaga gacanta kusoo suubiyo u dhiibtay. haddii aad mooshinkan uu hirgalo waa sidaad sheegtay oo ra-iisul wasaaraha ka wadaan, ra-iisul wasaaraha kala yimaada suurtagal mata inuu doorasho qof cod qabto? wallahi ra-iisul wasaaraha dambe oo imaanaya doorasho qof iyo coda ma qaban karo waqtina uma haayo, because waxyaabahaas aan kuu sheego oo dhanaa meesha ka maqan. waxaa keliya oo laga rabaa ninkaas. markaasoo lama oran kara waad dulminaysaan ra-iisul wasaare xamse mar haddii isaga aad ku haysataan doorasho qof cod dalkii ma gaarsiin karo, hanaankii kale dowladnimo wax badan ka qaldan oo midka kale imaan doona aad leedihiin uma suurtagelayso waqtiga. xamse lama dulmayo. xamse 3 sano uu jooga xafiiska, 3 sano uu fadhiya xafiiska oo prime ministerka. inuu wax qabto iska daaye waxa waaye maanta wuxuu qabto la sheegi kara ma jirto. doorasho qof iyo cod soo ka hadla lama arkin. musuqa asaa sheegay maalin walba dhahay dalkii wasiiradii shaqada ku lahaa ayaa ka shaqeeyay soo baxay oo hawsha gacanta ku hay. xukuumadda asaa madax ka hay. musuqa asaa noo sheegay inuu midka ugu sarreeya dalka oo meel ay ka xakameeyaan ay leeyihiin. welina lama arkin asagoo dhahay madaxweynuhu jidkan ku socono waa qaldan yahay.
maskaxda aan shiilno aan isku soo noqonno aan dalkan waqti yaraan haysanayo sidii nala ku soo doortay ama aan ku nimid aan gaarsiino aanaan uga daranay intii laga leeyahay waxaa furmila baarlamaanka oo iminka aad sheegtay in mooshin ra-iisul wasaaraha aad xilka kaga xayuubinaysaan aad wadaan mar haddii baarlamaankii uu xiran yahay sidee rabtaan inaad wax ku qabataan waxay ka mid tahay cabsida jirta waa baqayaan nimankan waxay u furi laayihiin baarlamaanka waxay maqleen mooshinka jira madaxweynaha asoo og maalinkii 6 bisha ay tahay oo la rabay inuu furo ayuu safar iska aaday wax kalena maahane waxaa loo maleeyaa sidii mooshinadii hore iyo inuu kan yahay oo dadka halala hadlo oo hala kala furfuro oo saan hala yeelo iyo waxyaabahaasay wadaan mooshinkan mooshin furfurid u baahan ama yeelaya maaha gudoomiye aadan madoobana waa ku qasban yahay inuu baarlamaanka furo hadduu furi waayo baarlamaana magaalada dhexdeeda kaga furaynaa meeshaas asagana xilka uga qaadaynaa mooshinkana aan prime ministerka ku tuuraynaa sharci ma tarinkaas sharci waa xagee ku qoran tahay sharci dastuuri ah waaye oo sheegaya haddii baarlamaanka la carqaladeeyo oo loo diido xubnaha golaha shacabka inay shiraan inay meel walbo dalka kamid ay shirkooda ku qabsan karaan oo ka baxsan golaha shacabka ka baxsan golaha shacabka dastuurka qoraya saasaan samayn doontaan haddii uu guddoonka furi waayo haddii alla guddoonka maadaama 3 qof ay ka kooban yihiin gudoomiye ku-xigeenkii iyo ma la xiriirteen oo arrimahaasi ma kala hadasheen waxa waaye gudoomiyaha hadduu joogo sabab aan gudoomiye ku-xigeen aan ula xiriirno ma jirto gudoomiyaha laga rabaa inuu baarlamaanka furo hadduu furi waayo sida ugu dhaqsaha badan annagaa furayna intaas waay arma arrinkani uu noqdaa midkii xildhibaanada dana qaasa inta raadiyaan oo la kala furfuri jiray oo ku soo aruuri jirtay danaha shakhsiga waxaa jiray xildhibaano ka horreeyay oo adigu qaarkood qayb aad ka ahayd oo iyagu saanoo kale isku daya sameeyeen la kala furfuray waxaa lagu eedeeya xildhibaanada qaarkood ee mucaaradka ah inay yihiin kuwa danahooda qaaska ah buuq iyo abaabul u furo runtii aniga ma hayo warkaas mooshinkii ugu horreeyay ee prime minister oon saxiixo waa midkaan caawa kuu sheegayo mooshinka horreey aniga ma saxiixin dana gaarana kama lihi baahina ima hayso oo hadeertaan aan leeyahay waxaasaad ugu xilinaysaa waxaan u samaynayno waa in dalkan uu hagaago tacadiyada laga ilaaliyo dib u dhaca waxa u samaynayana ama waxa dib u dhaca samaynayana laga qabto prime ministerka dalkan dib u dhaca uu ku yahay maxaad ku eedeynaysaa waad qodobayn kartaa ra-iisul wasaaraha waxaan ku eedeynaa intuu asaga sheegay inay dowladnimadii hareer marsan yihiin inuu musuqa cirka maraayo in amnigii ay wax ka qaban la-yihiin oo waqtigii ay qabsadeen ay weli ugandhayskii iyo waardiyeynayaan iyo dadkii ajaanibta ahaa ayagaa sheegay in within 2 years ay dalkan waxaasoo dhan bixi doonaan ay ka madax banaanaan doonaan runtii fariinta aan dirayo waxaa waaye number 1 prime minister xamse cabdi barre waxaan rabnaa inaan u sheegno walaalow wixii lagu egmaday waa ka gaabisay waa feelgarooday intaan mooshinka faloorka imaanin oon la isqa qabsanin adiga wax ku wanaagsan waaye inaad intaad timaado aada resign garayso oo xilka ka tagto dalkan adigoo badbaadinayo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo ugu horeeya maamul goboleedka ka soo jeeda madaxweyne xasan sheekhna waxaan leenahay dalkan sanada dhiman doorasho qof iyo cod kama dhacayso mana loo socdo extension u socotaa suurtagalna ma meeshii lagu soo doortay teendadii waa jirtaaye systemkii asaga ahaa intaad waqti kale iyo wax kale aad lumin systemkaas asaga aan isugu soo noqono doorashadii 2022 aan marnay waxaan ahayn dalkan kama dhacayso waan ognahay kaasaan ku noqono dal iyo dibadba kaga adeego Visa kaarka Salaam Somali Bank. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah